jirka aadanaha kaga yaala qayb hodan ku ah marinada dhiigga blood vessels. Sidaa awgeed waxaa sahlanaan kara inay dhaawacyo soo gaaraan kadibna dhiigo. Haddii sanka lagu arko inuu dhiig ka soo daadanayo, waxaa luqadda hooyo lagu yiraahdaa goror mise sangoror, halka afka qalaad lagu yiraahdo epistaxis mise nose bleeding. Dadka qaar ka mid ah ilaa 60% waxaa la ogaaday in noloshooda maalin ka mid ah ay isku arkeen gororka. Sanka in lagu arko dhiig waxay qofka ku beeri kartaa baqdin, laakiin xaqiiqda waxay tahay in gororka inta badan lahayn khatar. Gororka waxa uu leeyahay 2 nooc, waxay kala yihiin gororka qaybta hore. Gororka qaybta hore wuxuu dhacaa haddii dhuumanka dhiigga sanka qaybta hore kaga yaala ay dhaawacyo soo gaaraan. Gororka qaybta dambe sidoo kale waa markay dhaawacyo soo gaaraan dhuumanka dhiigga qaada qaybta dambe. Noocani waxa uu dhiigga u sii daadegi karaa qaybta dambe, deedna wuxuu u gudbaa cunamareenka. Wuxuu khatar gelin karaa caafimaadka qofka. Gororka waxaa keeni kara waxyaabo badan, laakiin waxyaabaha ugu caansan waxaa ka mid ah hawada qalalan. Hawada qalalan waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan keeni kara gororka. Waxay qaleyl ka dhigtaa xuubka sanka. Xuubka qaleylka ah wuxuu qofka ku keeni karaa cuncun, kadibna uu xoqo. Haddii xuubka sanka xoqitaan loogu saaro, wuxuu keeni karaa sangoror. Waxaa jira dawooyinka qaar keeni kara sanqaleyl, sida kuwa lagu daweeyo xasaasiyadda iyo sanboorka. Haddii qofka qaato aspiriin ka badan xaddiga loogu talagalay, wuxuu ku keeni karaa gororka iyo dhiigbax guud ahaan jirka. Dhaawac soo gaara sanka. Dhaawaca waxa uu sanka ka soo gaari karaa dibadda iyo gudaha. Dhaawacyada waxaa ka mid ah jabka, kiimikada, sanka inuu xidho shay foreign object. Waxaa kaloo keeni kara hindhisashada iyo dhiig karka. Gororka intooda badan uma baahna wax dawo ah, iskooda ayay iskaga bogsadaan mise iyadoo la raaco tallaabooyin waafaqsan gargaarka degdega ah. Inuu qofka istaago kadibna horay isku hodaamiyo si loogu hortago dhiigbax badan. Qofka inuu istaago mise joogsado waxay xididada sanka ka yaraysaa cadaadiska dhiigga, halka hodaaminta ay qofka ka ilaaliso inuu dhiigga u daadego cunamareenka. Adeegso farta murdisada iyo suulka, kadib ku cadaadid labada dhinac sanka, gaar ahaan qaybta jilicsan. Waxaad ka neefsataa afkaaga. Haddii uu dhiigga istaagi waayo, ku celi. Waxaad wadaysaa ilaa 15 daqiiqo. Waxaa loo baahan yahay daryeel caafimaad degdeg ah haddii gororka uu yahay mid dhacay shil gaari kadib, mid ay la socoto hawo qaadasho cidhiidhi leh, naqas ku dhegid, mid leh dhiigbax badan mise dhiigbax ka badan 30 daqiiqo iyadoo la cadaadinayay xalku dhiigga ka socdo. Fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow haddii gororka kugu soo noqnoqonayay muddo ah. Gororka waxaa looga hortagi karaa adigoo isticmaala vaseline, gaar ahaan xilliyada qaboobaha. Inaad carruurtaada ka yaryarayso cidiyaha.